بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani warbaahinta halbeega wararka ku soo dhawaada warka warbaahinta qodobada idin soo gudbin doono waxa kamid noqonaya faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya banaanbaxyo xooggan oo gilgiray magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland toogasho ka dhacday magaalada Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo lagu eedeeyay dagaal culus oo qasaare geystay Muqdisho ayuu ka dhacay maanta waxaa loo fadhiistay dacwad xisbiga himilo qaran ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu hogaamiyo go'aankii ka soo baxay ayaan idin soo gudbin doonaa mas'uul ka tirsan Puntland weerar ayaa lagu qaaday qodobada ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 18 bisha 12 November 2019 u diyaar garooba saaxiibayaal faahfaahinta qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran channelkan subscribe dha calaamada kambalka furta muuqaalkan saaxiibayaal si share gareeya aynu ku bilownay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta ka dhacay dagaal qasaare geystay oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkan oo geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir waxaana u dhahay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan police iyo military dagaalkan ayaa waxa uu si gaar ah u dhaxmaray ciidamada booliiska ee ku sugan degmada Hilwaa iyo kuwa military ah oo ku sugnaa degmadaasi waxaa la sheegayaa in is-afwaamaad uu soo kala dhaxgalay waxaananta ay ku saabsantahay isqabqabsi dhul goobjoogayaal ku sugnaa halka dirirta ka dhacday waxa ay sheegeen in qasaaruhu gaarsiisan yahay dhimashada in ka badan 5 askari halka laba kale dagaalkaasi lagu dhaawacay wararka ayaa waxa intaas ku darayaan in dhaawac uu soo gaaray taliye saldhigga degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir ilaa hadda se waxaan jirin cid ka hadashay wararkaasi maanta ka dhacay degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanayay isku dhacyada dhaxmara ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya banaanbaxyo xooggan maanta waxa ay gilgileen magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dibadbaxyo xooggan oo ay maanta dhigeen taageerayaasha xisbiga wadani waxaana dibadbaxaasi looga cabanayo xukuumadda Somaliland ee hogaamiyay Muuse Biixi dibadbaxayaasha waxay xoog galeen xarunta xisbiga wadani oo kol hore la dhigay ciidan bariis ay kuwaas oo la sheegayo in ay ka hortagayaan rabshado xisbiga wadani kol hore ku baaqay rabshadahaasi ayaa waxay saameyn ku yeesheen magaalada Hargeysa waxaana jirta rasaas ciidamada bariiska maamulka Somaliland ay u kala eriyeen dibadbaxayaasha walow qasaare la soo warinayo maalmihii la soo dhaafay gaar ahaan 24 saac ugu dambeysay waxaa kacsan xiisada magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland kadib khudbad uu sheediyay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi khudbada ayaa waxa uu weerarkii ugu cuslaabid ku qaaday xisbiga wadani gaar ahaan Cabdiraxmaan Cirro waxaana uu sheegay in uu xiriir qoto dheer la leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho hadalka kadib ayaa waxaa jirta kacdoon shacab oo ay dhigayaan taageerayaasha xisbiga wadani maanta ay ku balansanayeen in banaanbax xooggan u dhaco walow ciidamada ammaanku ay kala eriyeen dibadbaxayaashii taliska biliiska maamulka Somaliland ayaa war ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in magaalada Hargeysa aanan wax banaanbaxa laga dhigi karin walow maanta dibadbaxayaasha la kala eriyay rasaastan lagu riday maxkamadda sare ayaa waxay maanta u fariistay kiiska dacwadii ay gudbiyeen xisbiga himilo qaran ee hogaamiyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa in dhawaan ahaanba xiisad ay ka taagneeday muran u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya madaxda ugu sareysa xisbiga himilo qaran ee hogaamiyo madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed dacwadaasi ayaa waxay ka bilaabatay maanta maxkamadda sare ee dalka walow markii dambe muran hareeyay dacwadaasi dib loo dhigay kiiska dacwadda ayaa waxa uu ahaa mid muran dheer uu ka dhashay asayeeshee waxaa la sheegay in abukaati u doday xisbiga himilo qaran uu noqday shaqaale ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana la eriyay amaba dib loo dhigay dacwadii xisbiga waxaana lagu ballamay in mar kale dacwada la qaado waa kan guddoonka maxkamadda sare oo go'aankaasi gaaray subax wanaagsan maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii 11aad 2019 maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka kooban 5 xubnood waxay u fadhiisanaysaa dacwad maamul oo u dhaxaysa xisbiga ku-meelgaadhka ee himilo qaran oo dacwadaha iyo hay'adda duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliyeed oo dacweysanaa taariikhdu markii ay ahayd 28
bishii sagaalaad ayaa waxaa cabasho soo gudbiyey maxkamadda sare looga cabanayo go'aan maamul oo la sheegay inuu ka soo baxay hay'adda duulimaadka rayidka 16 bishii tobnaad 2019 ayaa maxkamadda sare waxa ay furtay galka uu nambarkiisu yahay 80 oo dacwad maamul oo u dhaxaysa dhinacyada aan sare ku soo sheegay labadii bishii 11 2019 oo ah bishan aynu hadda ku jirno ayaa xafiiska garyaqaanka guud oo metelaya hay'adda duulimaadka rayidka ah waxay soo celiyeen jawaab celintii cabashadii laga soo qaatay go'aanka maamul ee la sheegay inay soo saartay hay'adda duulimaadka rayidka waxaynu maanta u fadhiisanaynaa maxkamaddu u fadhiisanaysaa dacwadaas waxaan insha Allah tacaala dhinacyada dacwadaha iyo dacweysanahaas ay maxkamaddu siin doontaa fursado siman oo waqtigoodu aanu xadidi mayno daqiiqadaha ama saacadaha ay dhinacyadu soo jeedinayaan doodooda laakiin waxaan siin doonaa mid walba inta uu ku dhammaysanayo doodiisa inta aynaan u gudagelin waxaan rabaa inaan sheego qodobo kooban oo aynu u baahannahay inaynu ku dhaqanno dhammaanteen inta ay socoto fadhiga ama garmaqalka ay maxkamaddu ku dhagaysanayso dacwadaasi maamul ay u fadhido waxaa kow ah inta ay marka ay maxkamaddu furanto in la joojiyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa soo gelitaanka iyo bixitaanka hoolka ay ka socoto maxkamaddu lama ogola sidoo kale gudaha hoolka ay maxkamaddu ka socoto lama ogola in laga sameeyo wax dhaqdhaqaaqa sidaas oo kale lama ogola mana banaana in la isticmaalo wax telefoon ah nooc kasta oo ay yihiin haddii ay noqoto hadal haddii ay noqoto sawir iyo haddii ay noqoto duubid wax la duubo intaba sidoo kale waxaa mararka qaar dhacda in ama la sacbiyo ama la qayliyo iyaduna waa reebantay haddii ay timaado duruuf ama xaalad degdega oo lagama maarmaan ah oo ay ku timaado qof ka mid ah dadka fadhiya hoolka dhagaysiga dacwadda waxa uu furan inuu gacanta taago una sheego maxkamadda xaaladda degdega si loo fasaxi karo maxkamaddu waa inoo furan tahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin haddana waxaan siinaynaa dooda dacwoodayaasha marka ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم محكمة شرفت هذه وما سنتاي runtii waxa weeye waa horumar la gaaray in maanta dawladda hay'adaha dawladda iyo dad shacab dacwad u dhaxayso in maxkamadda ay ka qarnaqayso xilli dhow arintaasi suurtagal ma ahayn marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo kordhiyo oo aan dadku inta ay wax kale ay xaqooda ku doonan lahaayeen in maxkamadda loo soo doonto mudane gudoomiye markaan u galo istortaagayna waa laba nooc oo laba qaybood waaye qaybta hore oo dacwadda ku saabsan iyo qaybta hore oo qareenada iga soo horjeeda ku saabsan qaybta labaad marka waxaan soo hormarinayaa qaybta ku saabsan dacwadda dacwaddan markayna soo gaartay waxaa na soo gaaray dacwad maamul oo soo jeediyey qareen cabdullaahi iyo saaxiibadiis kadib markay maxkamaddu noo soo dirtay waxaan baarnay go'aanka maamul ee laga dacwoonayo waxaan weydiinay hay-addii la dacweynayey jawaabayna soo siiyeen waxaa kale oo aan maxkamadda soo weydiinay 22 bishii 10aad inaan maxkamadda laftigeeda aan yiraahdo wax go'aan hadaad haysaan inaad noo soo gudbisaan si dacwadda muuqaalkeeda iyo waxa ay ku saabsantay isku ekaadaan waxa soo baxday inuusan jirin wax go'aan ah maamul oo la dacweyn karo dacwadda waxaa bays u ah waraaqahan waxaa leeyahay notom ayaa la yiraahdaa notom go'aan maamul maahan go'aanka maamul marka qaanuunka la darsayo waxa uu leeyahay shuruudo loo baahan yahay inuu buuxiyo
marka lotamkan waxaa lagula macaamilaa ay hay-addu ku maamushaa hawada waxaana lagu macaamilaa kambaniyada cid kasta ha lahaato guud ahaan saaxiibayaal warkii ka daawanayseen warbaahinta halbeega wararka waa naga intaasay nabadgelyo